waxa kale oo mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo culays weyn ku dhacay iyaga iyo shaqaalahooda iyagana waynu mahadnaqaynaa hawl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo barasho waa iyagana aad iyo aad baynu mahadnaqaynaa waxaynu u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Soomaaliya oo runtii inoo suurtageliyay dal jira xuduudda daafaca gudihiisa kala nabad gala tartanka inta la galana iyaga oo naftooda horeeyaala oo xaasaskoodii carruurtooda aan danayn ee qaranka ka horreeyay iyagana ugu mahadnaqaynaa waxaanu mahadnaqaynaa saaxiibada Soomaaliland ee caalamiga ah ee dawladda leh ee leh haddii la urur leh dhammaantood taageerada ay siiyeen ee aqoon leh ee waana leh ee dhaqaale lehna waynu ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii waxaynu u mahadnaqaynaa bahda warbaahinta Soomaaliland saxaafadda oo intii oran socday iyo intii ka dambeysayba mar walba dhinaca qarannimada iyo danta guud ka ilaalinayay oo la hawl gala shacbiga warar sugan iyo qarannimo ilaalinayana waa mahadnaqaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa sababta xisbi oo iyo wadan oo laba xisbi muddo kala madaxdooda iyo taageerayaashooda ay yihiin gaaraha waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiye oo ah xisbigii isoo sharaxay gudihiisa ila hawl galay guusha dhigay maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guulaysan saddex xisbi guulaystay Soomaaliland baa guulaystay maanta ma nihin annaga iyo idinka waxaynu nahay innaga oo Soomaaliland wax kasta oo Soomaaliland ka tirsato qardoof ay balaad buu yimaadaa qoyska iskhilaaf aabiyeyna hooyo iyo inan laba baaxmir wada xisbiyada danta inta laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyayaasha Faysal iyo ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanaato waxa qulay wadana ahayd waliba war ana hawshaas aan hayatayda hore loogu maraya walaaltinimada dalisba lagu tartamay xumaan iyo xisb ummadda kala culeysiyo midna uma inaagay saxaafaddu saas dhaxal ka tahay maanta intii bay dhahay waa qasab kubadda yar aragteen hadii qola laga badiyo yar qawmiyota waa binaadmu waa waxayna u abuuray hadii xisb wax bidiiday yahay waa doonaynaa walaaltinimadiisa Soomaaliland laantood hore u marmayso hadaynu kala tirsanaa cadowgeena badanaya walaalkeen kii wax tirsanayaba baaqnabadeed gacan walaaltinimo iyo waxaynu soo dhibsan jiraan dhameysano ayaynu u baaqaynaa oo ugu diyaar garoobaynaa waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta intay wada leedahay ee heshiiska ku tahay ayaa ka badan wax isku soo karto Soomaaliland waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala way cadow Soomaaliland waxay horumar kartaa marka soo baadin aniga oo maanta ummad karaameysay oo cod ku badaysiisay maaha inaan kaliya guuleystay waxayna guuleystay murashaxii wadani iyo kii codba labadaba waxaan ka codsanayaa si kalaamo leh oo wadaninimo ah inaanu isugu maadno dalkooda maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo waxaan ku soo koobayaa oo ugu dambaysiinayaa dalkeena horumarkiisa iyo waxay noo baran midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaaro xarragan inaagti